xildhibaan xasan cawaale caynaan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Somaliland laga soo doortay gobolka Gabiley ayaa maanta lagu dhex garaacay xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland waa sida uu sheegay xildhibaanku waxaana xildhibaanka gacan u qaaday taliyaha aqalka madaxtooyada Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xildhibaanka wallahi golaha anagu joognaa madaxtooyada anagu joognaa ayaa nin xildhibaan oo la socday ayuu nin gacanta ku soo fiiqay deetana waxaan ku yidhi war wax xildhibaanay aad gacanta ku soo fiiqin deetana ninkii wuxuu tagay taliyihii ordaya ayaa markaa halkii igu yimid deetana feed aanan awgeyn arkayna ayuu igu dhuftay dib baan u dhacay deetana askartiina warkaas way igu soo yaacday nin walba dhinac buu qabtay ii jiiday qaar baa dhirbaaxay runtii dhaawac weyn baan qabaa oo markaa wadnaha wallahi waxaan ku sugaynay waxay shirkii wasiirada ahayd markaa waran caddaan dan lahayn oonu halkaa u tagnay waran cadda wuu joogay waraanta taliyaha madaxtooyada mise taliyaha guud ee qaranka taliyaha madaxtooyada isaga ay feerayba maadaama aad xildhibaana waliba xisbiga kulmiye ka tirsan madaxtooyada dhexdeedii lagu gacan saaray arrintaas ay noqonaysaa xildhibaanada xasaanada duwanta wallahi arrintaasi dee waa arrin golaha ay u taallaa iyo xukuumadda